السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخيارتكم حرين عمر كي يوتيوب هبين وناكسن أنفر وناكسن رمضان الكريم عاوي يا channel كي لجوجه كل إذا من برايو إذنكم باحتا وحال الرواج جوابتنا سود جيسين وصاحبك خالق عبد الحكيم إيوه دي جي أحمد عاوة وحن ودنا وبرنامج إذن حيسجلين دونه هدو إلهي كرالي نقضو عبد الحكيم ما حد يقدر خيارته كحيل عمر كي يوتيوب. السلام عليكم أصحابي التاني سودو هذا سبسكرايب كلاجا بنكيني وين لا تعملين ماشان يعني ما تبقى واحد نيكو يوتيوب قالي نعي وفدي أحد له مركا جنا كان كالكعين إن شاء الله قربنا نوصي ولا لين إيش هاي أحمد يجي أحمد محاك لي أصحاب شمك الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب خالد سودو هذا ونيجو ولكن ديجي أحمد يران كحافظة هل كان قد عملنا سمسنا سوا عمر كي يوتيوب فضل هذا نقول سبت سودو هذا ولا هذا نقول سمنا سودو ويا هنجي ما من سبسكرايب كجنبالي الكفرس كلايك تنجي لوين شير تنو أصحاب هذا شير جري كومنتينا نوصق الهوس فضلا عاوا هل كان وحان يقولنا برنامج شدي هوركدون horaan waxaad nooga barateen inaan nii soo dhigno challenge brand riwaayado balse caawa barnaamijka aan nii wado barnaamijka hore wuu ka duwan yahay marka waxaan ku wareejinaa walaalkii Cumar أخيارته استوى وش شيء صاحبك أحمد يعاو برنامج عصب إن شاء الله لصعدة عاو وحن كهل دونا هدو إلهي كرالي نخضو عابو خانة أدونك هلي ولو مقع يخانو كوفيد 19 أما كورونا فيروس هاتو تخانان أيان جعلنا هاي أنجي صاحبك أحمد إنا كبحينو محالتها qaabka u dhaqmaan maxaa la wadanka Soomaaliya qaabka u dhaqmaan wadanka Kenya macna bulshada ku wada nool labada dhan insha Allah waxaan noo daadin doonaa barnaamijka saaxiibkeena Khaalid Cabdi Xakiin سودو هذا أصحابتي ودونا مرينا مستر أحمد قلت وما قصي كينيا وحيابها كيجي خاف حجران دك سومالي سوى حجران وما خلصها مركا كين معك ليلة horta maad sanad walaalkii Cabdi Xakiin sida sharafta la igu soo dhaweysay igu casuumtay barnaamijka caawa oo aan ka hadlayno caabuqa coronaviruska horta haddaan ku hormaro aniga waxaa waaye waxaan ka hadlayaa dalka Kenya horta dalka Kenya waxaa waaye dal hoggaansan oo maxaa la jiray madaxdooda oo ka dambeeyaan warka iyo hadalka oo madaxdooda u soo jeediyaan qaadanayaan ayadoo marxalado badan ka jiro ay saas ay tahayna waxaa waaye way ka dambeeyaan wax walbo jiro waxa bandow lagu soo rogay ayadoo bandow lagu soo rogay way qaateen bandow waxay 21 maalin ayaad bandow ahaanaya habeenku waa dhamaaday 21 waa loogu daray ma fahamtay waxa lagu daray ayadoo saa lagu daray haddana waxa waaye waxaa haddana la keenay bandow xaafadda Islii Nairobi gaaran xaafadda Islii ayadana waxaa la keenay in la xiro suuqa hal la xiro muxumo maysan qaadin maxaa la jiray maysan mudaharaadin shacabki saan ognahayna Islii dadka u badan oo jooga majority-ga waa Soomaali saan ognahayna Soomaalidu waa madax adag tahay balse Soomaalida Kenya ku nool kama sareeyaan sharci ayaa xukumo waxaa la jiray way qaateen amarkii qaateen haddana weli waa socdaa marka waxaan dhahaynaa Kenya waxay la socdaan caalamka هاي مستر عمر horta ninkan walaalkayga Axmed horta khayr ilaa asiyo caawa wuxuu ka dabaajiyay macnaha shuruucda ka dhaxaysay nidaamka ka dhaxay dawladda Kenya iyo shacabka Kenya xaqiiqatan horta markaan ka hadlo dawladda Kenya iyo shacabka Kenya misna dawladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliya haddaan ka hadlo aniga dhanka dawladda Soomaaliya horta maanta waa mid mar walba inay jecel shacabkeedana u hogaamiso wanaaga waayo waana aragtaa idaacadaha waad ka aragtaa دور مرة يتاجر وسمسي شعبك الصوماليين حتى أنا يقول هذين كينيا وكنا نهاي مثلا ما تد أحمد سوشي جايو أحمد ما تدولة كينيا وما في إن حقوق الشعب كنا الوطن كينيا مركل لا في حتى شعب كينيا ما أهدت الخال وضع هيستو كتك مركل بعد لا في وحا كنا الوطن كقحوتين أو تربنا لما قيمانين نلاش المستقبل قضاء قدام بيه حيراد وكسورين حيراد وحا كم مهم سن أنت من حيراد وكسورين شعبك إن الحقوق دي سفيرسو sababtoo adigoona shacabka xaquuqdiisa fiirinin kuma degdegi kartid wax la dhaho inaad xayiraad ku soo rogto aniga run ahaantii taas dawladda Kenya ee sameysay horta haday taxadir tahay waa taxadir laakiin wax walba waxa muhiim ah shacabka noloshooda iyo wanaagooda iyo caafimaadkooda iyo maxalada iyo qaabkii uu inaad ogaato shacabka Soomaaliya hadda waad aragtay xanuunku wuu jiraa alxamdulillah horta Ilaahay hanaga dulqaado
asigoo xanuunka jiro anaga haddaan horta dadka Soomaaliyeed ma nihi dad mar walba takoora mas isfaquuqo kala fogaada aniga waxaan dad mar walba isku soo dhawaado oo na jecel inay isku soo dhawaadaan soo xagartama marka aniga aan Cabdixakiin ahaan markaan ka hadlo dawladda Soomaaliya shacabka Soomaaliya waa dad aad u jecel inay dadaal sameeyaan laakiin waxyaabo yar yar oo culeys ah jiro insha Allah taas waxaan ilaahay ka rajeynaa inuu naga yaraan doonaan gartay kullet Ahmed arintaada maqlay ninkan ma maqlaysa wuxuu leeyahay aniga ay ahaanteeya waxay ila muuqataa dhanka Kenya go'aan iska gaarto qof xanuunsan ee isbitaal geynayo ee la dhahayo lacagta aad iska bixi adduunka kale oo cudurka haya midda koowaad tan labaad qofkii marka cudurka laga helo ama waxyaabaha baaritaanka ay sameynayaan hal bahal in isticmaalo oo dadka dhan ma wada isticmaalaya si baasha sanka la gelinayo ama afka marka taqdiin meel xarumaha la isku baarayo qofkaana la gelina ama la gelina qofka inuu qabay iyo adi inaa qabto lama kala xadeyn karo because wixii la isticmaalayo waa hal shay aad koowaad waa dhanka Soomaaliya soo hartay Soomaaliya lama diidana horta taxadar way sameysay dawladda ma sha Allah way mahadsan tahay shacabkeeduna u dadaashay laakiin shacabka ayaa xoogay waxa u malaysaa inay ka dhigacadeen maadaama ay arkaan hada xanuunka iyo musiyadadeena way taxadarayaan oo isbedelo fara badan ayaa ku imaanaya waa maqashay sida miisada waa fiirsataan marka Ahmed maxaad ka dhihi arintan oo Kenya ay sameynayso horta laba erey ka dhawaajisay waxa tahay dawladda dadka isbitaalada sameey xarumihii lagu karantiilay ayaga iska bixinay horta taas waan ka diiday waxaan kaaga diiday karantiilka dawladda ayaa ku shaqeeya dawladda ayaa bixinayso idageyso ay taxkiin walaal waxa waaye cuntada dawladda ku siinayso daarabtino lagu keenay dadka ku keenay aniga nadabtu dhaay taas waayo min aniga asra shaqeeyno oo xalii jiray oo aan ganacsada suuqa joogo ayaa cudurka laga helin balse waa laga shakiyay wuxuu la kulmay dhakhtar cudurka qabay waa la karantiilay ninka waa soomiyahay cuntada afurka suxurta loo geeyaa dawladdan way siisaa waa asaga noo sheegan wax walba waa la soo bixiyay lacag shil ma bixinin dawladda ayaa bixisay wixii dhan fahamtay dawladda aniga arkay ayaan ka hadlayaa teeda kale waxaa dhacday bahalka sanka iskaga dadka lagu cabiray sanka laga gelinayo hala dhacday hal ma ahan horta qofka marka sanka laga geliyo jawaabta waxaa waaye 24 hours waaye jawaabta la helaya geedkaasna calaa qof aa lagu fiirinaya fahamtay adiga haddii lagugu fiiriyo qofka lagu fiiriyo horta message kama soo baxayo jawaab صح waayo aniga lagu fiiriyay adaa lagu fiiriyay Umar lagu fiiriyay jawaab kama soo baxay balse hadii ani lagu fiiriyay geedkaas waa la dhigaa geed kale lagu fiirina ma fahantay okay waayo sug hal mar testing tubes ka way badan yihiin kits ka waxa lagu tijaabinayo oo lagu baarayo way badan yihiin ku soo marka fursadaada mida aan leedahay yani dadka waxba kharash leh ma qaado sida baabuurta wacyigelinta oo meelaha wareegaysa waa maqashay qof walba waxa la leeyahay cudurka laga helo asiya u taagan inuu qarashka iska bixiyo baabuurta wareegaysa dawladda ka socdaan kulleed ma dhahayno maanta dad shakhsiyaad ka socdaan oo mikrofoonada ugu soo xiray wixii leeyihiin markii cudur laga helo ama laga shakiyo warrantiga 14 cisho oo karantiin lagu geynayo inaad iska bixinaysid qarashka kugu baxaya because taas cadeena loo hayaa oo ma inkiraysin waddanka ka jirta mid labaad ku soo harto oo bahalka la isticmaalaya baaritaanka 24 saac leedahay meeshan hadaa tagto islii wax arkaysa dad ma ogi Soomaaliya loogu darnaanaya isoo waddanka dhan ka jirta waxa arkaysa halkii shay ay dhowr qof lagu baarayo ani adoona waa fahmi waaye inta tagay aan dhahay qofka wala gelina qofkan wala gelina ana ma gelina ma ogi waxa qabaani kaas oo saar ha soo laabta dhanka Umar dhanka Soomaaliya abdakin horto waa Soomaaliya horto waa horto wadan hadda sid war taqaana canuga yar markuu socod rabo socod barash uu yahay waxa muhiim in gacanta laga qabto dawladda Soomaaliya waqti xaaladka ay taaganta waa midaas oo kale ayadoo maanta awood aan lahayn mas awood dhaqaalo mas awood dhan walba ayadoo lahayn ee maanta hami waxay u leedahay shacabkeena ka nafsiiso hadda Kenyadan hadda aan joogno aan ku noolnahay waad aragtay hadda xayiraad oo waxa la saaray islii kaliya ma siyaasada mas waa ilaalis oo cudurka lagu taxadirayo ma dhici karto sababtoo ah tawnkii waa furan yahay ganacsigii magaalooyinka way furan laakiin only islii ayaa albaabada loo laabay
taasna ma dhici kartaa inay tahay in covid-19 laga ilaalinayo islii mase waxay tahay arrin siyaasadeed oo loola dan leeyahay shacabka ku nool dalka Kenya Soomaaliya والله تاس أرنتا صوتها نوعية وجيب بدن بيلاد هاي aniga run ahaantii markaan si u fiiriyo arrintaa arrin siyaasadeed ay la tahay sababtoo ah waxa waaye islii waa maanta suuq oo keliya oo maaragtay Soomaalida ka shaqaysato waxaan ku nool boqolaal Soomaali oo maanta masaakiin oo ku nool xoogsato dad nooc walba ku nool yaasan culayska loo saarno in albaabada laga xirto haddana la dhaho maaragtay ganacsiga islii waa lockdown oo wax laga shaqeyn karo malahan qofkii masaakiin xataa maanta oo banaanka wax iska dhiganaya xataa heer waxaa la gaarsiiyey la jirdilo tiigaas loogu daro dhibaato fara badan la geeyo xabsi la geeyo la xiro haddana kharash laga sii qaado waa arrin dhibaato aad u tiro badan ay leedahay aniga taas ahaan waxaan qabaa dowladda Soomaaliya hadday tahay dowladda Soomaaliyeed maanta culayskaas ma arko shacabkii ayagoo dantooda loo daneynayo ay haddana waxay u hoggaansamayeen haddana waxay sii raadiyaan qaabkii u hoggaansamayeen inkastoo dhibaatada yar iska jirta ay tahay shacabka Soomaaliyeed mid dad aad isku xiriiriyay ay yihiin saa aniga ognahay قلت عم لكن كان يحكي قديار ومخلص أصعب كلام وحط تحت أريك بونتي أد وأبد كلت أنا دنكينو كسرتك دنك كينيا يبقى جرا وحويا وحويا يعني ذاتك سومالي ده أيا علاش المسارية دولة الصومالية إنك استو إسكيا أهود لهن حتى نوع ديار أتعدد كده إني عاوز إيتا كلاسو أيضا كنت حدني سنة عذر كأنه فافو dadkeen iska madax adag yihiin marka maxaa ka dhihi lahaa dalka Kenya horta aan Abdixkiino because lockdown in Islii geliya soo xaruushay horena point aad u sheegtay oo karantiilka laba waay horta ka dhaxgalada kuma sheegin karantiilka waxa waay qof karantiil hadi binafsiya waxa waay waxa lagu dhahaa dawladda loo karantiila oo dawladda ayaga geenayo waxa la jiray meel lagu karantiilo adiga haddaad dhahdo ma rabo hotelkadaas ka bixinaysid haddaad dhahdo meesha dawladda u karantiilaysa ma rabo waayo dawladda qolkay ku geenayso suga ku dhameey walaal dawladda meesha ku geenayso ee kugu karantiilayso waxaa waaye iskuulaadka waxaa waaye kolejyadii waaye xirnaayeen aan lagu karantiilaa balse haddaad diidad binafsiya aad dhahdo aniga ma rabo waxay kugu qasbaysaa inaad hotelkan iska bixisid midda kaleeto oo aan xayiraadana aan ka hadlo marka aan mar soo gabiyo xayiraadan ka hadlo xayiraadan waxaa waaye hadduu cudurka meesha uu ku batay waayo islii dadka degan waxaa waaye saan waa mar walba waa jaam saan la soo dhexgalaa cudurkiyaa batay islii kelima aha waa xayiraada la saaray Mombasa Old Town ayadana xayiraada la saaray waxaa loo saaray waxaa waaye cudurkiyaa ku batay marka ha u maleen in xayiraad islii keli la saaray oo Soomaalida loo doleeyay okay asxaabteeni saaxiibkay arinta ka dhawaajisay kulida ana ku biinala qaldantaa sida ka maqalnay wareysiga dawladda bixinayso iyo baabuurta wareejinayso dadka waxay gelinayso waqtiga oo nahay darteed waxaan ku wareejinaynaa Mr. Cumar hal iyo labo kulli aniga arrin ahaanta horta maadaama barnaamijka uu gabagabo marayo horta run ahaantii waxaan qabaa aniga ahaanteeda saaxiibkayga Axmed mas'uulkayga Axmed waxaan qabaa waxyaabaha badan uu qarinayo iska ilaalino iska daayo sababtoo ah meeshan cadaadis si kala wax u jira sababtoo anaga waan la socnaa problemka meesha uu ka taagan yahay mise shacabka qaabka loo maqooninayo ma dhici karto islii bas inuu cudurku ekaado Kenya kale oo dhan ee macna ay fasaxnaan taas mid aan fahaysan waxaan dani waxaan qabaa dawladda Kenya kun iyo jeer waxaan jeclaan lahaa inay culeyskan ay qaado hadana shacabka ku nool raadisay marka adiga way kulay marka wixii kulay waqtiga oo nahay darteed waa soo gabagabeynayna erey u dambeeyay waxaan leenahay kulay dawladda Kenya cabid waan aragnay Soomaaliya waa aragnay kulay waxaan maleynaa asxaabta dhankiina waa ra'yi ahaan akhi qabtiin asxaabta meel walba aad joogtaan waxaa idinka codsanaynaa fadlan inaad like share comment subscribe inta baad ka bixisaan kulay barnaamijka maan mid caaw kaliya ku insha Allah oo idin soo noo sii socon doona haduu Ilaahay kala noqdo waxaan rajaynaynaa anagoo caafimaad qabta idinkoo caafimaad qabtaan meel walba adduunka aad ka joogtaan Soomaali weyn aad idin jecelna waa idin taageernaa asxaabta ha u maleyn inaan ka soo horjeedo dawladda Soomaaliya waxaan Soomaali ahay muwaadin ahay Soomaaliya ha noolaataa dhaa Soomaaliya u socoto waxaan barnaamij leeyahay xarartana waa inagii soo gudbinaynaa ee commentiga noogu soo reeba qofka saxan iyo qofka qaldan bu commentiga noogu soo reeba waxna والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته